kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada boggeena YouTube ee Brothers Media Group oo aad alaaba ka daawataan warbixinadii ugu dambeeyay ee Soomaaliya gaar ahaan warbixinada xasaasiga ah iyo dhacdooyin cajiib ah iyo qaybaha kala duwan ee suugaanta Soomaaliyeed. fadlan daawada haddii ay tahay booqashadii kugu horeysay ee boggeena YouTube ha hilmaamin subscribe inaad gambaleel ka furatid si aad u noqotid kumanaanka qof ee boggan saaxiibka nagula ah ku mahadsanid. warbixinteena maanta waxa aynu ku eegaynaa xaaladihii ugu dambeeyay ee fanaanka da'yarka ah ee Soomaaliyeed Khadar Ibraahim Keyow oo ku xiran dalka Itoobiya. fanaanka ayaa xaaladiisa laga dayrinayaa walow oo jiraan warar soo baxay maalmihii ugu dambeeyay oo sheegaya in fanaanku uu xoriyadiisa dib u helay. haddana fanaanka kale ee xaaladiisa sida aadka ula socday Cabdi Dhaanto ayaa boggiisa YouTube warbixin uu soo galiyay wuxuu ku sheegay inay adkaatay xaaladda fanaanka Khadar Ibraahim Keyow. dadka qaar ayaa sheegay in Khadar Ibraahim Keyow lagu haystay kiis ah inuu xaday hees uu leeyahay fanaan kale oo Itoobiyaan ah, sidaas darteedna kiiska heestaas uu xaday lagu geeyay xabsiga dhexe ee magaalada Addis Ababa. balse xaqiiqada ayaa ah in fanaanka uu sababsaday wax isdabamarin dhanka baasaboorada caalamiga ah iyo laanta socdaalka dalka Itoobiya. sida aan ognahay dalka Itoobiya wuxuu ku jiraa dalalka ugu adag shuruucda dhanka duulista hawada. sidaas darteed waxaa jira fanaaniin Soomaaliyeed oo si aad iyo aad uga dhiidhiyay arrinta lagu haysto fanaan Khadar Ibraahim Keyow. fanaaniintan ayaa waxaa ka mid ah Axmed Saki oo ugu baaqay fanaaniinta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ugu horeeyaan Suldaan Seraar inay u gurmadaan fanaankan kana dhiidhiyaan. ila fanaaniintu waa walaalo waa inay isku kacaan idinka dalkii jooga idinka magaalada jooga. hello may Seraar iyo fanaaniintii may ka kacanayo ka kaca walaalkiin si loo xiri karaaniyo idinkoo jooga meeshaniyo runtii ma qurux badna idinkoo jooga oo dalkii taagan in walaalkiin la xiro. waayo fanaaniintu waa walaalo iyaga walaalo ah inay isku kacaan inay iska dhidhiyaan. cod baan leenahay bawarkiina inaan adeegsano weeyaan. fanaaniintii rejiska may saaxiibaday fanaaniintii reer dhabo may abti ka kaca inanka soo daaya waa ceebe inanka u kacaniyo. waa kan Cabdi Dhaanto oo ka hadlaya warbixinta saxda ah ama falka saxda ah ee uu sababsaday Khadar Ibraahim Keyow ee lagu haysto. sida ogtiin wiilku baasaboorkaas ayuu watay ciladii ku timid baasaboorkiisa inuu soo qaban waayo mashiinka ee qaybta socdaalka ee immigrationka ayay ka bilaabatay in maartay shaki badan oo dhinaca alaamaha amaanka Itoobiya uu ka dhasho. taas darteed ayaa sababtay yarka fanaanka saaxiibka in la xiro. daawadayaal intaasina waxay ahayd warbixintii ugu dambeysay aan kala socono xaaladda fanaanka Khadar Ibraahim Keyow. intaan warbixintan mid ka xiiso badan ku kulmi doonana waxaan idinkaga tagnaa sidaas nabadgelyo.